بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين maanta oo ay tahay salaasa 2022 bisha July waxaan ku qabanayaa maanso magaceeda la yiraahdo hargaysa marka hargaysa la yiraahdo waxa inagu soo dhacaya ama qof kasta ku soo dhacaya hargaysa heesaheeda faraha badan leh suugaanteeda faraha badan leh waa magaalada Soomaalida ugu heesaha iyo suugaanta badan leh balse anigu tixdan aan magaceeda hargaysa u bixiyay sababtii aan ku keenay baan raacin doonaa waxaana ay tahay anigoo hargaysa jooga 2018 horaantiisii ayaa waxaan qoray in yar oo maansadan kamid ah isla waqtigaana aan ahayn xaaladana noola oo hargaysa dadka ka baxay inta badan ma aan ahayn dabadeetana intii aniga oo hayo oo iska joojiyay ayaan magaalada ka baxay waxaan tagay Djibouti magaalada Djibouti dabadeetana intii oo practical ah ayaan la kulmay waxay oranaysay intaasi in maansada keentay anaa habeen qudha ka dhaxa hargaysaay soo halbawlayaashii hawadaadu kiorisaye kugu hoos barbaariyo meelo kuu hiloobaa hafeefan maayaan soo hoygii ababkiyo dhulkii hooyaday iyo Rugta aan ka ahay Hebel dhalay ma tihido haybad kugu hoos lihi marka sheekada ka dhacday Djibouti baa waxay ahayd inta aan leeyahay Hebel dhalay soo ma tihid meesha aan ka ahay ayaa anaga oo niman asxaab aan isbaranay oo Djibouti isku baranay anaga oo wada fadhnaa ayaan noo soo galay dabadeetana tobaneeye meelaha ayuu ragii dhinaca iga xigay midigta soo salaamay isagoo nin kasta oo abtirnaya waxaan ka hadlayay markii hore waxay ahayd Hebel dhalay halka aan ka ahay waa hargaysa yaani halka la iga garanaya in bulshada taqaana ee abtirnaysa ay joogtaa kadibna nin kasta uu abtiriyay uu soo gaaray kadibna wuxuu dhaafin waayay magacaygii Maxamed kadibna waxaan xusuustay intan aan 2018 qoray waqtigana waa 19 dhexdhexaadkiisii July meelaha bisha markaan ku jirno oo kala qiyaastay meelaha kadibna waan fikiray intii markaan xusuustay ayaan iyadoo practical aan leen arkay habeennimadii qalin iyo warqad u qaatay oo maansada tan hargaysa la yiraahdo ayaan ka uriyay waxa ay ku bilaabmaysaa Tixda Hargaysi mararbaan hargaysaay u hayaan iraahdaa dhul hareerahaaga ah haddana way adkaataa inaan ka huleelaa mahuraalka waxa tahay hilbahayga qaar leh kala hora dareemaha aadmigu ku hawlgalo anaa habeen qudha ka dhaxa hargaysaay soo halbawlayaashii hawadaadu kiorisaye kugu hoos barbaariyo meelo kuu hiloobaa hafeefan maayaan anaa hargaysaay haamadayga barafkiyo hanfi kulul ku doorsada jawigaaga hodanka ah soo hoygii ababkiyo dhulkii hooyaday iyo Rugta aan ka ahay Hebel dhalay ma tihido haybad kugu hoos lihi mar rafiiq haboon oo hawshay la jiro oo awgay u huri kara nafta lagu hadlaayo qudha ii hibayn kara qurux ii hanayn kara anna aanu hagar baxo oon hadiyad uga dhigo tuwaloon u heli karo oonu nahay hal iyo nirig meel aanan ka helayn miyaan kaaga haadaa intaan haw ilaa subax saw habeen xalay tagay hirgalaynin kuma jiro ma miyaan hargaysaay meel aanan ka helayn inta nolol ad haysoon cidi hoy iyo oranayn intaan hawl yaraan baxo ama hiir u kicitimo u hayaami karaya kayntaada hadhici isu wada hadaafee dusha ii ah reeraha iska haysatee badi isu wada hadaaqdee dusha kaa hagoogtiyo hoobaanta lulatiyo damalkaysu waday baad hadh adduun ku noqoto kuwa hayb magaaliya magac kula halmaalee hirka kaala muuqii hantidaadan gaarka ah herar kulama laha oo hal kuu gaara weeyaan hogashana gu iyo dayr kolay tahay kolkay tahay hilaacyada qaar baa haraadane kaama soo habsaantoo jiilaalku kuma helo cirka waxad had iyo goor hibe eebbe weeye dad hortii ka dharagtaa isagoon cidnaba helin ciidaadu huga iyo kuma reebta haylyaha heerka taashkoo habaas ma leh dushaaduna hindhisada buskeeniyo boor duriga huriyo hargab lagama cawdo carradaadu waa harag laga tiray hurgumadoo rabigeen habeeyo ehelkaagu waa hurin gobannimada lagu hubo
waa hanada garasho leh iyo hilib mid keliya ah hayb qabiil iyo qolo la isku hiifiyo qoqob kuma habsaamaan oo maba haleelaan habra waa ka xaaraan hidahoodu waa qaran markay hawrtay gobonnimo gumaystuhu hayaameen kuwii ugu horreeyay gunnimada haraatiyey tii heel la joogteen qayrkeed ka hadhinay iyadoo ay hawaaraan hadhaadyoonayaan oon qayrkeed hambaabirin tii hurisay ficilkee hanka weyne kiciyey hanqalkii xornimadoon hawlyari la booday hanqalkii xornimadoon hawlyari la boodee gaalada huruuftee in la haysta diidee hal abuur ku dirirtee hiiftaan ku saartaay hooyaalin gabay iyo murti wada halhaysiya hawraara badanay afka hooye dhidibkii dhisayee had iyo goor hayay dhoomihiisay fanka oo hog lagu riday la halleeyey dhaantada hirwadana la dhaga tiray dhaxalkeenna heesaha hobbo tii ku gaadhee botorkii hamboy tidhi ee ha qabtiraysay inta hoobal tiro galay ama looga soo hadhay hal abuurka maansada hore tii u marisee u hirgelisay hawraar in habwaan higaadshaa hagarlii uu tabiye hadalkeenna dhowrtay hoygii daleeshaay heelkii duruustaay haradii daliilkay heegada daruurtiiyo degalkii hufnaantiyo hubantida aqoontiiyo hararkii culuumtaay hoggaankii dalkaygaay hablo dhaqanka soomaal huwan bara ku caanaay hanadada xornimadiyo halgamaaga baydkii ku ahayd horyaalkaay dhammidaa hargaysaay dhisnidaa hadaysaay hantidaadu badana kuma hela hargaysaay inta lagu hagaasiyo inta beled hagaagsani kaga hadho asaagii horarkii ku dumiyiyo hore ololkii kuu maray hargaysaay dushaadiiyo dib hareerahaagiiyo hogobyada docdaadiiyo uma soo hawaystaan hilimaha ku soo gala weligaa hargaysaay inta hudabogaagiyo buuraha ku haarana doco lagu hagoogee heel iyo bar kugu yaal ama haadku uu galo iyo saba hab loo dego hurgumada xanuunkiiyo cudur kuuma hoos galo inta lagu hafeeftiyo hubka la isku gooyiyo beleg kuuma hoyato kuma heera laajigu sokeeyuhuna kuma hodo nacab uu hunguri wado nabar uu hacoofalo naxli uu ibliis hago nusqaan goysa heensaha iyo hadimo naafa leh ka badbaad hargaysaay wax waloo hantaaqa ah kaahay ilaahay